asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamtii saaxiibil dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada casharkeena. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano. waxaan qaadanaynaa have and has. have iyo has waa verb to have waay ama verbka haysashada. marna waa main verbkii ama verbkii, marna waa auxiliary verbka. The verbs have and has are used waxaa loo isticmaalaa to say inay tilmaamaan what people own or possesses. dadku waxa ay leeyihiin. They are also used waxaa kaloo loo isticmaalaa to talk about inay ka hadlaan things sheeyaal that people do or get oo dadku ay sameeyaan ama ay helaan, such as sida illnesses jirooyinka ama xanuunada dadku dhaca. These words ereyadani are the simple present tense of the verb have. waa simple present tense waa ama verb to have-ka waxaa loo yaqaano. Exampleska aan ku bilaabo. Pet has a sore knee. Beta waxaa xanuun ka qabsaday amabase nabar kaga soo baxay jilibka. We have breakfast at 7 o'clock a.m. waxaan quracnaa annaga 7 subaxnimo. iyo the monkeys daanyaradu haaf waxay leeyihiin long tails seen dhaadheer ay leeyihiin. He has a lot of stamps. Staambooyin badan ayuu haystaa. She has long hair. timo dhaadheer ay leedahay. Our house gurigeena has large windows. daaqado balbalaaran ayuu leeyahay. I have a younger brother. anigu waxaa ila dhashay walaal aad u yar. We have art lessons on Mondays. isniintu waxaan qaadanaa casharo art ah. Have a cookie if you like. cookiga ama macmacaanka ama doolashada cun haddii aad jeceshahay. Dad has a cold. aabe hergeb ayaa haayo. Jenny often has a sandwich for lunch. Jenny badanaaba waxay cuntaa sandwichka qadada. Sandwichka waa maaragtay rootiga iyo hilibka la isdhex geliyo. marka waxaan rabaa inaan kuu sheego has iyo have pronounska siday u kala qaataan. Pronounska have iyo has waxay u kala qaataan afarta pronoun I, you, they iyo we waxay qaataan have ayay qaataan. saddexda pronoun kalena sida she, he iyo it waxay qaataan has ayay qaataan. Okay, let's look at the next. Use has u isticmaal marka waa qaabka hadda aan kuu sheegay. waxaa u isticmaashaa he u isticmaal, she u isticmaal iyo it. And with singular nouns iyo magacyada halhalka. magacyada halhalka waxaa laga wadaa sida tusaale waxaa laga yaabaa man, nin inaad aragto because hadda kuwan man waxaas kuma jiraan. maanka haasa siinaysaa ama table miis oo kale haasa siinaysaa. halka I iyo you iyo we iyo theyna waxay qaataan have qaataan iyo plural nouns magacyada jamaca. Here is a table. kani waa shaxan to help you remember the rules oo ku xasuusinayo ama kaa caawinaya inaad xasuusto sharciyada uu leeyahay. For example, first person waa I iyo we way labadaba have qaataan. Second person waa you waxaa way have qaataa. You have qaata markay jamac tahay because waa you oo adiga ah iyo maaragtay you oo ah idinka. Third person kan waa qofka saddexaad waa he has. marka hedan haddii he kale ay u tagto they noqdaan. She has hadday bataan waa they. It has hadday bataan waa they. Learn these constructions or contractions. waxaad ku qasbantahay inaad barato marka soo gaabintaani maadaama have has aad baranayso. I have ayaa waxaa loo soo gaabay I've. You have waxaa u soo gaabinay you've. He has waxaa u soo gaabinay he's. She has she's. It has its. We have we've. They have
they've, have not, haven't, has not, hasn't. qaabkan oo soo gaabanaya waxaan imaanaynaa marka exercise-kan laba exercise waay labadu waxaa lagu buuxinayaa have iyo has keliya kan koowaad ayaan kaala shaqayn doonaa kan kalena markaan shaashad soo saaro waad post garaynaysaa buuggaaga ayaad ku qoraysaa kadibna waad ka shaqaynaysaa note buuggaaga ku qoraysaa for example kan koowaad waxaa lagu buuxinayaa have iyo has ayaa lagu buuxinayaa waxaan u eegaynaa pronounska ama subjectiska hadday plural yihiin iyo hadday singular yihiin iyo hadduu I yahay hadduu I yahay iyo we yahay iyo they iyo you intaas buu yahay have ayaan gelinaynaa haddii uu yahay markaasi she iyo he iyo idna waxaan gelinaynaa has ayaan gelinaynaa hadduu yahay plural subjectiga hadduu badan yahayna have ayaan siinaynaa hadduu hal yahayna has ayaan siinaynaa tusaale waxaan leenahay halkani we a new science teacher macalin cusub oo science ayaan haysanaa we have aan leenahay marka he has a bad temper wuu dabeecad xun yahay I often have fruit for dessert inta badan waxyaabaha macmacaanka markaan rabo inaan cuno fruitka ayaan cunaa dessert waa waxyaabaha macmacaan waa you have a good chance waxaa haysta fursad wanaagsan of winning oo ah inaad ku guulaysto the prize hadiyadda she always mar waliba ayada she way has oatmeal for breakfast oatmealka ayay u qaadataa maaragtay quraac ahaan kani waa waxyaabaha laga sameeyo qamadiga ama maaragtay misigada the broomka xaaqinka dhulka lagu xaaqo has wuxuu leeyahay a blue handle gacan blue ah ayuu leeyahay meel la qabsado oo blue ah they never have any problem with tests marna dhibaatooyinka lama kulmaan ayaga imtixaanaadka testiga ah waxaan imaanaynaa exercise-ka ugu dambeeyo exercise-kan waad u jeedaa halka wax ku qoran fill in the blanks with have or has ku buuxi meelaha bannaan have iyo has weliba waan kuu sii sheegay kan waxaa waaye subjects ayaa la isticmaalaya pronouns lama isticmaalayo yacni magacyo caadiya la isticmaalaya ama nouns la isticmaalaya so marka waxa u eegaysa inuu badan yahay inuu hal yahay kaliya haddaad u aragto inuu badan yahay oo plural uu yahay have gelinaysaa haddii subjectiga uu yahay markaasi singularna waxaa gelinaysaa has ayaad gelinaysaa tusaale wuxuu leeyahay the girls gabdhaha golden hair waxay leeyihiin timo dahabi ah an insect cayayaanka 6 legs 6 lugood ayuu leeyahay dad aabe his cell phone with him telefonkiisa ayay maaragtay uu haystaa the children caruurta new swing set waxay haystaan wiifow cusub many poor people dad badan nothing to eat waxay cunaan ma haystaan oo faqiir ah Chicago gobolka Chicago a very big airport wuxuu leeyahay airport weyn ayuu leeyahay a triangle waxay leedahay three sides saddex dhinac ay leedahay triangle-ka ama shape-ka triangle-ka leeyahay the man ninka wuxuu leeyahay 2 daughters laba gabdhood oo isagu dhalay Jamesna waxa ahaaya a toothache goos xanuunaya ma iliga xanuunayo all the passengers dhammaan dadka rakaabka their tickets waxay haystaan tikedyadooda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaan kulmi doono casharka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano